dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidanka ah ayaa dabcan si weyn looga dareemayaa magaalada Boorama iyo magaalada Saylac oo ka tirsan gobolka Awdal beesha Samaroon iyo sidoo kale beelaha daris wadaaga ah ayaa waxay ka caroodeen ficiladii ay ku dhaqaaqeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo lagu laayay dad rayida haddaba xogta macluumaadka iyo wararkan helayno ayaa waxay tilmaamaysaa in beesha Samaroon ay sheegtay inay aargudan doonto oo ay tallaabooyin qaadi doonto tallaabooyinkaasi lama oga waxay noqon doonaan laakiin arrimo ciidan ay u badnaan doonaan xiisad kale ayaa laga soo warinaya bartamaha magaalada Saylac waxaa jira warar iyo macluumaad soo baxaya oo tilmaamaya in beesha Samaroon ay go'aan kama dambays ah u gudbisay maamul goboleedka waqooyi waa maamul goboleedka Somaliland lagana cabsi qabo dagaal weyn oo ka dhaca gobolka Awdal sida ay xogo tilmaamayaan haddii xaajadan aan si degdeg wax looga qaban dad badan waxay aaminsan yihiin inay arrinku noqonayso meel barakaley ah oo xaajad aan waxba laga qaban karin xubno saraakiil qaarkood oo aan la hadalay si aan arrinkan wax uga weydiino waxay sheegeen inay la yaab ku noqotay in ciidanka Somaliland ay rasaas nool u adeegsadaan wixii ka dhacay laascaana 2023 ilaa 2022 ayuu kacdoonku wuxuu ka bilowday kadib markii beesha Samaroon waa beesha aan dheer dhul bahanto ay dad kala ama beesha Reesh Isxaaq ay dad ka laayeen dhul bahantaha taasoo keentay in kacdoon halkaas uu ka dhaco hadda waxa la soo warinayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidanka ah oo diyaal dhaqameed hadleena waxay tilmaameen inay tallaabooyin degdeg ah qaadi doonaan si ay u xaqiijistaan nabadgelyadooda arrimaha dadka la socdo waxay leeyihiin haddii aan si degdeg ah arrinkan wax looga qaban xaajadu waxay tagaysaa meel aan barakaley ah oo wax laga qaban waayo laakiin dhaqdhaqaaqyada socda iyo xaaladuhu si isku bedelayaan markaad eegtid ciidanka Somaliland ayaa buux dhaafinaya magaalada Saylac iyo magaalada Boorama taasoo loo arkay inay tahay digniino kama dambaysa oo dabcan loo dirayo cid walba oo ku lug leh falalka halkaas ka dhacay saraakiil aan la hadlaysan wax uga weydiino amuurahan waxay tilmaameen in marba marka ka dambaysa la dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoog leh dhaqdhaqaaqyadana intooda badan ay salka ku hayn doonaan ama ay tagi doonaan meel aan waxba laga qaban karin si walba ha ahaatee markaad eegtid xaajadu sida isku daba marayso iyo xaaladihii ugu dambeeyay waxa ku muuqanaya in dhinacyadu ay feejignaan dheeraad ku jiraan iyada oo marka ka dambaysana la arkayo dhacdooyin naadir ah oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan ilaa 4 xubnood oo ka tirsan maamulka Somaliland oo tagay magaalada Boorama waxay tilmaameen in ay arrinkan wax ka qaban doonaan oo ay xaajada dib u fiirin doonaan haddii aan si degdeg wax loo qaban dhaqdhaqaaqyo iyo waliba mudaharaadyo ayaa Boorama laga abaabulaya dhalinyarada la xirxiray loogu doodayo kuwa la dilina xaqooda loogu raadinayo laakiin markaad eegtid xaajooyinka sida isku bedelayaan waxaad moodaa in beesha Samaroon ay hadda wax tirsanayso haddaba wax yar la daawada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Samaroon oo ku dhawaaqaya dagaal ka dhan Somaliland gaar ahaan inta daawan doonto muuqaalka shirkan jaraa'idin maanta halkan ku qabanayo waxaan kaga hadlayaa arrin dhawaanahan ka soo cusbaanaatay degmada Saylac ee gobolka Salel arrintaas oo laba qodobka koowaad waxa weeye buug la sheegay inuu yahay xeer qabiil oo la doonayo in lagu soo bandhigo degmada Saylac horaanta bisha November ee foodayna gu soo leh talkalana waxa weeye ninka governorka gudoomiyaha gobolka ka ah Salel oo isaguna halka fadqalad iyo dhibaato ka wada ha ku horeeyo arrinka xeerka qabiil ee la rabo in lagu soo bandhigo halka xeerkaasi waa mid ka soo gudbay meel kale oo laga keenay qaryo kale dhul kale dadkii deegaanka lahaa ee deganaa oo ah beelaha Gadabuursi waxay go'aansadeen inay buugga iska diidaan dadkii buugga soo qoray oo ah iyaguna dad ku dhaqan degmada Saylac waxay yiraahdeen buugga waxaanu ku qabanaynaa Saylac iyagoo markaa dhulkana sheeganaya arrintaa waxaanu aragnaa qalad ما هم أنا قبلنا هدانو نهاي تذكير دقن كوه هي بيلها كذا برسي وحنا نوارجنا دولان هي حصرت لقى أبو ريو الدقمة السيلة يقول كسلة هدي بوق قال الشيء يو وياهي بوق لغري
oo xeer iyo wax lagu qoray buugta iyo xeerarka dee waxa la geeyaa jaamacadaha iyo iskuullada annagaa ku soo dhaweynayna in buuggaa loogu soo bandhiga dadka jaamacadda Camuud ee gobolka Awdal iyo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadaha kale ee geyigeena ku yaala markay halkaa joogto ninka guddoomiyaha gobolka oo isagu aanba baxay oo wuxuu siibtay isku dirka kala qoqobka iyo kala dilka ummadda ayaa wuxuu haddana ku darsaday inuu yidhaahdo dadkii dhulka lahaa ka guura oo waxa weeye saacadaan idin qabanaya arrintaasi ma aha mid noo cuntanta khalad baananu aragnaa waana gef waxaanan leenahay ninkaasi wuxuu jabiyey nidaamkii maamul ee meeshaa ka jiray intaa waxa raacda dadka deegaanka ku nool gobolka Salel gaar ahaan dadka Gadabuursi waxa ay dhibaato colaadaysan oo nacayb ka buuxo kala kulmeen xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye ee dalka soo maamulay waxay ku dhaqmeen inay xukunka iyo talada ku wareejiyaan dad gaar ah oo ah dadka buugga sita oo intooda badan iyagu reer guuray dadkii dhulka lahaa ee Gadabuursi waxa weeye farahooda laga saaray taladii xukunkii baa laga fogeeyay arrintaa waxaan u aragnaa mid khalad ah oo weli haddaana taagan xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa in dadka taladoodii loo celiyo oo mataqaanaa halkii ay lahaayeen iyo xilalkoodii iyo dheelitirkii maamulka dariiqiisii lagu soo celiyo intaa waxa ii raaca Saylac maanta mushkilad baa ka taagan mushkiladaasi waxa weeye mid ay sababeen dad gaari anigu waxaan isleeyahay xalkeedu ma foga haddii la raadiyo wuxuuna noqonayaa xalkeedu kow in ninka barasaabka ah ee gobolka barasaabka ka ah laga saaro xukunka oo xilka laga qaado laba in buugga la leeyahay meesha lagu soo bandhigayaa horraanta bisha November isagana sideeda loo joojiyo xukuumadda taasaan faraynaa waxay keenaysaa arrintaa haddii la joojin waayo in ummaddu isu dhacdo fadqalada ka dhexdhacaan dhibaato aan la xakamayn karinayna ay ka timaado waxa weeye oo kale oon halkan kala hadlaya dadweynaha Gadabuursi baaq baan halkan uga diray